soo dhawaada saaxiibayaal waxaa idin hayaa xog xasaasi ah. Nimankii Al-Shabaab ahaa waxay bilaabeen inay gabi ahaanba isaga baxaan gobolka Shabeellaha Dhexe kadib markii duqeymaha diyaaradaha ciidamada cirka ee Soomaaliya iyo saaxiibada caalamka ay ka fulinayeen oo adkeysan waayeen. Warar dheeraad oo naga soo gaaraya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in ciidamadii ugu badnaa kooxda Al-Shabaab ay u ruqaansadeen gobolka Bay iyo Bakool. dagaalyahanno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa lagu soo warramaya in saacadihii la soo dhaafay lagu arkayay gobolka Bay iyo Bakool, halkaas oo lagu soo warramayo in dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab ay u soo ruqaansadeen saacadihii la soo dhaafay. In Al-Shabaab ay u soo ruqaansato gobolka Bay iyo Bakool ayaa waxaa sabab u ah duqeymaha cirka ah ee habeen iyo maalin ku socda kooxda. Sida uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, nafar kasta oo kooxda Al-Shabaab ka tirsan ama xubin kasta oo kooxda Al-Shabaab ka tirsan waa hadaf, wuxuuna sheegay in duqeyn lala beegsan doono goob kasta iyo gool kasta oo ay joogaan. In Al-Shabaab ay isaga baxaan gobolka Shabeellaha Dhexe sidoo kale waxaa sababtay dagaalka joogtada ah ay kula jiraan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada dadka deegaanka ah. Al-Shabaab guud ahaan Shabeellaha Dhexe waxa ugu furan dagaal cir iyo dhul ah. Cirka waxaa kala dagaalamaya saaxiibada caalamka iyo ciidamada cirka xoogga dalka Soomaaliyeed. Sidoo kale dhulka waxaa kala dagaalamaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada dadka deegaanka ah. sidoo kale Shabeellaha Hoose ayaa la rajeynayaa in maalmaha soo socda uu ka bilowdo guluf ka dhanaa kooxda Al-Shabaab. walow maalmihii la soo dhaafay dagaal gaadmaha kooxda Al-Shabaab ay ku soo qaadayeen farsimaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Hoose sida Awdheegle iyo Bariire iyo Sabiib iyo Canoole. sidoo kale shalay ay markii dagaalyahanno ka tirsan kooxda Al-Shabaab weerar hoobiyaal ay ku soo qaadeen fariisan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku lahaayeen gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan degmada Afgooye. Isku soo wada dub Al-Shabaab hadda waxa lagu soo warramayaa in ay gabi ahaan isugu yimaadeen gobolada Bay iyo Bakool. Sida la rumaysan yahay gobolada Bay iyo Bakool ma ahan meelaha Al-Shabaab gulufka dagaalka uu kaga socdo. waxaan la rumaysan yahay in dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab badankooda ay ka soo aslamaan gobolada Bay iyo Bakool. Sababaha ugu weyn ee kooxda Al-Shabaab isku soo urursanayaan gobolada Bay iyo Bakool ayaa ah in Al-Shabaab ay rabaan in ay la wareegaan gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan fariisimaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay halkaas ku leeyihiin. balse ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee fariisimaha ku leh gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ah ciidamo foojigan markasta diyaar u ah dhagarta kooxda Al-Shabaab ay maleegayaan. sidoo kale saacadihii la soo dhaafay waxa lagu soo warramayaa in maamulka Koonfur Galbeed ee halkaas ka arrimiya tiro dagaalyahanno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay halkaas ku dileen kadib markii ay ka war heleen in dagaalyahanno kooxda ka tirsan ay sakaawaad wax ugu yeeraan kooxda Al-Shabaab ay ka aruurinayeen dadka shacabka ee halkaas degan. tirada dagaalyahanada iyo horjoogayaasha halkaas maamulka Koonfur Galbeed ay ku dileen ayaa la soo bandhigay hubkooda iyo saanad kale ay wateen. dhinaca kale duqeymo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose ayaa waxa lagu beegsaday dagaalyahanno iyo horjoogayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab sida inuu xaqiijiyeen ila dhanka ammaanka ah. duqeymaha joogtada ee habeen iyo maalin lala beegsanayo kooxda Al-Shabaab ayaa ka dhigtay in Al-Shabaab ay guud ahaan isaga baxaan gobolka Shabeellaha Dhexe. Si kastaba ha ahaatee waxaa goor dhaweyd gobolka Shabeellaha Dhexe gaaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud halkaas oo uu u tagay in uu dardargeliyo dagaalkan ka dhanka kooxda Al-Shabaab. madaxweynaha ayaa la rajeynaya inuu halkaas kulamo kula qaato saacadaha soo socda saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee hogaaminaysa dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab ee halkaas fariisimaha ku leh. sidoo kale madaxweynaha ayaa la rajeynayaa in dhawaan uu gaari doono qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas oo dhawaan laga xuriyay kooxda Al-Shabaab, isagoo halkaas kula kulmi doono ciidanka dadka deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee halkaas fariisimaha ku leh.